qaybtii saddexaad iyo sheekadii jinni jahwareer jacayl. dhegaystayaal qaybtii labaad waxay noo joogtay inankii ama ninkii la yaabka lahay qaamquu markuu u hanjabay oo uu yidhi gabadhii waa inaad jeclaata haddii kale wixii kugu dhaco waa adiga ee u hanjabay deetana wuu soo baxay. waati hilaal ay hooyo xaliima ay u dirtay hilaal oo baadigoobaya balse waa uu soo waayey. hooyo xaliimana daal iyo fikir ayay iyana meelo dhacday, amrana war iyo hadal iyo quus toonna waa laga waayey. hilaal aweys ayaa markiiba guriga ku soo laabtay isagoo ugu yimid dhakhtarkii dhakhtar saciid oo isna ama kaagsan. meel oon tegin ma leh, beledweyne oo dhan waa soo wareegi, jiiral kasta waa ka raadiye xataa janta waa tegi. ninkaaneti indha mala saarin ma la arkin, wallaahi yaa booy. hilaal ma waxaad raadinaysa ninkii qaamquu ahaa? inis cer gale, inis dhul gale, meel oonka dayn ma leh, waa soo waaye. habarta iyo gabadhu way xanuunsan yihiin. aniga waxaan go'aansaday hadeertaan inaan dhiig ka qaado oon isbitaalka geeyo oon baaro saxarana aan ka qaado si caafimaadkooda aan u ogaado. waatan hore u sheegaan idhi gabadha min madax ilaa iyo lugu anaa baaraya. haddana waxaan go'aansaday xitaa habartaba inaan baaritaan ku sameeyo. yaa anma haddana u ka keentay maxaase adig magaalo ma joogi jirinoo dadka waa la daaweeyaaye. waxbaan baara ma jiraan waxaas. ani maa sheekada qofka u keenaysa ninkaanti oo la arki waaye waxaa fiican in loo doono ninka lilaahay oo baalqallooca jooga oo degan meesha la yidhaahdo gambarlaawe. oo baalqallooc muxuu tahaa? oo baalqallooc waxaan qaban karin miyuu qaban karaa? adi dhiigaa qaadaa iyo xaara qaadaa iyo saxara qaadaa. maxaa xaarka waa uraa, dhiig maxaa kase ku jiro. way isfahmi gari waayeen, waxaana dhex maray muran dheer. hase yeeshee qof walba go'aankiisii gaarka ayuu qaatay. dhakhtar saciidna wuxuu bilaabay inuu gabadha isagu baaritaan guud uu ku sameeyo, ileen ma aaminsana waxyaabahan khuraafaadka ah ee la sheegayo. hase yeeshee gurigii mar qura ayaa asxaab fara badan iyo dhallinyaro fara badani ay guriga u yimaadeen iyagoo gurmad u samaynaya gabadhan amran ee miskiinta ah ee xaalkeedu bariga dhexe u gaaray, bal inay u gargaaraan. dhallinyaradii magaalada beledweyne ayaa markii guriga yimid. gabadha waa laga yaabaya wallahi arinteeda marka hadaa kabadi baas adigu waxaan ku kala goyn war hadii aniga arkmaho wallahi waa billahi hadaan insaan u dilaayo xabadkiisa banaanka soo dhigin saas waayo arinta adiga saas inoo haysan guriga laakiin dhallinyaradii magaalada beledweyne dhammaantood waxay u dhaarteen ninkan qaamquu la yidhaahdo. hase yeeshee arrinna waxay ka taagan tahay talow mala arki doonaa. markiiba abti hilaal intuu cararay ayuu xaafaddii ama halkii laga helayey aw baalqalooc ninkuu ku sheegay oo ah nin uu hilaal aad u aaminsan yahay, islamarkaasina ah dadka kitaabada iyo waraaqaha ama waxyaabaha qaarkood kala ruuriya khuraafaadka ah si aad u aaminsan. aw baalqalooc waa nin feero weyn oo cimaamado fara badan duuban oo islamarkaasina kitaabo aad u fara badan wasita. markiiba waxaa albaabka guriga soo galay abti hilaal iyo baalqalooc oo isla socda. yaa jooga meesha? haa soo dhaafo. xalima haa waa ujeedaa waxaan wadaa ninka lilaahay baalqalooc mataqaan. war aniga baalqalooc iyo baaltiir muxuu ii qabanaa? wiil gabadheedi waa ujeedaa sakaraad waay, ma hadlayso, cunto ma cunayso. si allaale si aan yeelo ma aqaano walaaloo ujeedaa cunto ma cunin 3 beriya saas u taallaa meesha. war ninkan muxuu qabahaa? maxaa waaye ninkan waxaa la yidhahaa mataqaan horta magaciisa baalqalooc. ninkan oo dhan caanaska yahay. ninkan maryaha badan le oo ulaha badan le oo usha baalasha garoyeela wato oo tusbixiisa oo kunta leegta muxuu ii qabanaa aniga? maya muxuu qabanaa maaha. ninkan hadda ka hor webigiina soo fatahay moogtaa oo beledweyne oo dhan asaga inta loo yeeri layiri baalqalooc kaale webiga yimid celi oo arkayna webiga celi oo haddana jinni soo weerar mala socotaa.
haddeer waabatanaa gabadhi hadduu wax ka qabanayo ninkaani wax qabanayo ma iila ekee bal aan fiirino basar basiiran waa kana haddana asaaf daaweynaa fiirinaya gabadhii wayna la socotaa markiiba awbaalqalooc kitaabadiisii faraha badna ayuu la soo baxay halkii gogashi ahaad ayuu fidsaday talow muxuu samayn doonaa waxyaabo la yaab leh ayuu markiiba iyo ereyo iyo sheekakooyin kale ayuu galay basar basiiran foox ii soo qabo horta bal foox ii soo qabo baabkii koowaad waa laga waayey albaabu baabayni baabkii koowaad gabadhan barxarkeeda kuma jiro albaabu baxarayni baabkan baxarka waay badda gabadhan beled bad lama tagte haa gabadhan xamar barkay ka soo laabatay jirridaan la soo laabatay albaabu baxarayni baddaa laga soo raacay safar miyay ku timid haa basar basiiran baabkii afraad xataa kuma jirta gabadhan qumquu muxuu ahaa ninkan maxaa gabadha daba taagan ninkaas waa nin noo yimi oo si kale isaga dhanba bini'aadma oo ekeen basar basiiran waxaa loo baahan yahay in la keeno dooro yar oo lugaha ka gudguduudan arrimukaasaa ku dheeshin dile arkaa dooradaas haddii baldi weyn lagu soo shiinaha waa laga helaa shiinaha waa laga helaa doorada guduudan hala keena basar basiiran gabadhaas baabkeeda ma baxaayo iyadoon dooradaas guduudan la keeni alla wax kasta hanagu qaato waa keenaynaa gabadheeda tibcaan waaye horaa waxaa loo yidhi qof bukaa boqol u tali waa kanoo xaaji xaliima markiiba waxay ballan qaaday inay keeni doonto dooradaasi oo ninkaasi awbaalqolocu dalbaday laakiin dhinaca kale dhakhtar saciid ayaanba aaminsanayn waxyaabahan la yaab kale iyo weliba buugagtan iyo ninkan waxyaabaha laga sheegayo dhakhtar saciid intuu soo baxa ayuu hooyo xaliimo u yimid wuxuuna ka dhaadhiciyey amuurta inay waxba ka jirin balse isagoo uu dhakhtar caafimaad iyo shaybaarba geyn doono hooyo xaliimo waxaa ninkan la wado oo nooca kale ah oo buuguu fiirina ama kitaab kolley ma kala garanaye aniga horta waa la yaabanaha waxaan jeclaan lahaa gabadhan in isbitaalka aniga la ii daayo ilaa xad aniga ayaa go'aan ka gaarayo isbitaal ayaan seexinaya xaaladeeda caafimaad anaa ka warrami doono wiilkayga ii dhegayso horta adiga waxaa rabta same laakiin ninkaan nin wax yaqaano aniga ii leegyahay markii hore maba aaminsan laakiin wuxuuba sheegay gabadha meesha laga soo raacay iyo ninka magaciisa iyo balaayuu sheegay marka ninkaan waaba nin burhaantiisa ay sarraysa maba dayn karaba ninkaan amuu yahay nin oo idin indhisarcaaday oo allailahay aan filayo inuu aqoon badanba lahayn oo adinka madaxa idinka qaatay maya maaha waxaa waaye adiga kolley hadda waxaa baaraysa baaritaankaaga iska wado isagana dhinaciisa ha ka wada shaqadiisa qof waliba quminihiisa qoorta ugu jira habeenkii xigay ayaa la gaaray amuurtu sidii waxay u qasnaataba oo ninkii qaamquu ahaa lagu wareersanaadaba haddana miskiin gabadhan amran ahayd oo iskoolkeedii jaamacaddana ay magaalada beledweyne fasaxeeda ugu timid waa tanooba markii magaalada ay timid sariirteed dhextaal juu iyo jaa iyo hadal iyo shanqar toona waa laga waayey miskiin habeenkii xigay xilli dambe oo la jijiifo ayaa waxaa guriga gudihiisa laga dhex maqlay waxyaabo argagax leh aamus waxaan raba haddii lii samey waayo il damba lagu sii saari maayo allah aabba walla gabadheedii lala tegiyey allah aawi doctor saciid allah aawi ilaalow alla soo orda alla gabadhi waa u dhammaatay allah aabbo alla wanaa gacan galay gabadhi waa lala tegay maantana waa qeynlays gabadhii maba joogto allah intaa haynoo
joogto qaybtii saddexaad iyo sheekadii jinni iyo jahwareer jacayl xagga farsamada waa maxamed yare iyo cabdinaasir nuur geedi dhammaantiinba nabadgelyo